maalin wanaagsan saaxiibayaal qodobada wararka waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weerar kulul ku qaaday madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni kadib markii puntland ay ka hor timaaday in dowladda federaalka soomaaliya taliska ciidanka qaybta 54aad ee xoogga dalka soomaaliya ay ka howlgeliso deegaanada puntland haddaba waxaan idila wadaagi doonaa madaxweynaha soomaaliya oo si adag u weeraray madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo maamulkiisa kuna tilmaamay nin meel xirtay ama nin tuulo xirtay hadalka madaxweyne xasan sheekh ee uu ku weerarayay madaxweyne siciid cabdulaahi deni xaaladda puntland ka soo cusboonaatay oo madaxweynuhu si adag kaga hadlay barnaamijka ayaa rabaa inaan idinkula wadaago sidoo kale madaxweyne xasan sheekh waxa uu weerarkii ahaa uu ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka ee ku garabka ah dowladda soomaaliya haddaba maxay ka galabsadeen haddii ay dowladda soomaaliya iyagoo ku garab ah madaxweynuhu uu weerarayo waxaan idila wadaagi doonaa si adag oo siyaasiyiintan u bahdelay xubno ay ka mid yihiin shariistakiin iyo kooxda kale ee garabka filla soomaaliya galay oo uu kala sartay xubnaha mucaaradka ee bannaanka joogo ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad daawan doontaan xaaladda magaalada garowe maanta waa sidee maxaa ka jira wararka sheegaya madaxweyne deni uu amar ku bixiyey in lasoo qabto jenaraal jamcaale jaamac taakar faahfaahin ayaan idinkaga helaa waaranka la sheegaya in puntland ay u jarayso taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya soo dhawaada saaxiibayaal aanu ku bilaawno wararkeenna madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka qayb galaya munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho afka ayuu furtay waxaana uu si adag u weeraray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxa uu ka hadlay madaxweyne siciid cabdulaahi deni diidmadiisa ku aadan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee saldhigga ka samaysanayo deegaanada puntland waxa uu yidhi nin tuulo gaara xirtay ee la ima imaan karo sidaas baan samaynayaa soomaaliya kuma sii jiri karto sidoo kale nidaamka qabyaaladuu ka hadlay waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay tahay dowlad baahan oo aan taag lahayn kuna tiirsan taageerida caalamka iyo sidoo kale waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo marka khudbadda madaxweynuhu aad bay u dheertahay dhinacyo badan ay taabanaysaa laakiin waxaa uga xasaasisan in uu si adag u weeraray madaxweyne siciid cabdulaahi deni sidoo kale uu si adag u weeraray kooxda mucaaradka ee isaga ku garabka ah marka waxaa rabaa inaan idila wadaago hadalkan oo madaxweyne xasan sheekh uu yidhi waa tahay xaaladda magaalada garowe waa mid aad u kacsan iyadoo dhaqdhaqaaqa laga soo warinayo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni waxaa lagu soo waramayaa in laba mid uu hordhigay dhaqanka puntland oo ah mid in jamcaale taakar uu 48 saacadood gudahood uu kaga baxo deegaanada puntland iyo in ciidamada puntland ay waaran soo qabasho ah ay ku soo qaban doonaan jamcaale iyo ciidankiisa oo sharciga la horkeeni doono puntland ma ogolaan doonto ayaa laga soo xigtay madaxweyne siciid cabdulaahi deni wax walba oo maleeshiyaad la doonayo in lagu qalaqalgeliyo jiritaanka puntland marka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ismada dhaqanku waxay ka arisanayaan xaaladda soo cusboonaatay iyadoo denina uu aad u kaga carooday dhaqdhaqaaqa jamcaale iyo kooxdiisu oo isku sheegay inay yihiin taliska qaybta 54aad ee xoogga dalka ay ka wadaan deegaanada puntland xaalad ciidan ayaa ka taagan garowe arrintaasina madaxweyne siciid cabdulaahi deni ma aha mid farxad gelisay oo waa uu ka carooday waxaana uu soo jeediyey labadaasi mid ah in la weeraro jamcaale taakar iyo mid ah in uu isaga baxo puntland haddaba warbixinadaasoo idil hadalka madaxweynaha iyo warbixinada kasii horreeya arteen hoosman gureeb nabadgelyo kuwa qaarkood ee marna dowladda usoo cararayo marna maxaan ku rahaa dowladda kuwa inta diidan usii cararaya ee dhexda ah waxaa la yidhi hasha labada geel jecel dhexdaa dhir waa ku cunaa waa macno beelaysiin mowqif yeelo kaas bannaanka taagan ee qaylinaya ee dowladnimadu caqabad ku yahay aan leenahay aa ka khayr badan halka maalinna inta usoo carara maalinna xagga usii carara qofaa ilaahay kaa dhigay mowqif yeelo mowqifkaaga caddee in kugu raacdaad helay in kugu diidana waa helay munkarka iyo caweyska iyo fisqiga iyo balaayada inay xun yihiina ilaahay noo sheegay haddana dadaad doortaa aada meeshaas xun ee ilaahay uu noogaga digay dadaa aada khamriga caba balaayada gala waxa daran sameeya dadaa aada ilaahay sidiisaba bini aadamka wuxuu siiyey khiyaar choice wax inay kala doortaan janno ma rabta haa waddadaasaa tagta qaad waa dhib badan tahay jannay ku geynay janna haddaadan rabin waddadaasaa qaaday waddadan haddaan qaad tan haddaad qaaddo naaray ku geynay
ماشي سكاردي والراحة بدنتها وقصل بدنتها وفرحة بدنتها ومقعيس بدنتها لكن مركز ضمباء خير الأمور وحق الضبايا مر والبناء خير بدن والدولة نما ربنا odayaasha saak halka aan ku soo aragnay ee hadda aan magacyadooda sheegay ee soo bilaabay wasaaradda arrimaha gudaha waa oo weli dalku isticmaal ka taliyo oo jamhuuriyadda Soomaaliya aanay xor ahayn maalinta ay joogeen sida ay rabeen ma haysan sida ay jeclaan lahaayeen ma haysan dad badan oo ku dhaganna waa joogeen oo maalinta caayay oo dacaayadeynaya oo xumaynayo oo qabiileynaya oo waa reer hebel oo waa xagga u xaqliyaale oo xagga ka dhacayira waa 70 sano ka hor waa 66 sano maaha waa ka sii horeysay ilaan xilligii daakhiliyada wasiiradii arrimaha dibadda ahay ayaa meesha ragga aan tilmaamay Allah u naxariistay waqtigaasi ahay 60 kowdii Juulaay 60 ka hore ay wasiir soo ahay daakhiliyadii ما كرنا مياه ما عقلية سنة مياه خبرات ما كسبنا ما زائد سنة مياه ما أنت ما وحن هاينينا سياسة الدحديدة كلا دوانان شيء الله أنه حريست حاجة مسبقر وها وزير كأرماه جداه محمد كرا الدولة دي داخلية ده يو عبد الله عيسى محمود أو رئيس الوزراء والدولة الداخلية هاي khilaafkii maantaas dhex taagnaa oo la garanayo taariikhda la sheego kiyo kalamaan maanta joogayna 70 sano kadib 1956 55 hada umana ku tii 6 meelaha markay labada oday isqa qofku si kasto u fiican yahay ma keeni karo kuma filla aqligiisan keeni karin awoodiisan keeni karin يعني علاقات كيس انتو اللي كين لكن waxa keeni kara waa hay'ado dawladeed oo dhisan oo xoog leh waay waxa keeni kara waxaas waa sidaas walaalayaal mid aan mar walba ku celcelino oo meesha aan u bogno oo maanta aan ugu liidano ee aan ka dhutinaynahay waa siyaasadda Soomaalidu shirkadaha waa nidaamsadeen ganacsiga waa nidaamsadeen wixii ba jiro oo wax soo saar iyo waa nidaamsadeen way leeyihiin inta badan ganacsigu isma haysto hadduu bangiye yahay iyo hadduu isgaarsiin yahay iyo hadduu xawaalad yahay iyo hadduu shirkad dhismo yahay iyo hadduu shirkad dibadda wax u dhoofisay iyo mid dibadda wax ka keentay intaba Soomaali kala duwan oo geeskaas Soomaaliya ku kala nool ayaa waxoogaagi yaray haysteen inta isku kaansada isku biirsaday yaa kaligiis wuxuuna qaban karin qofkii yay u suurta gashay inay qabtaan sidoo kale dawladnimadana markaan isku keensano sidaas waxaan anigu qaban karin oo qof qaban karin oo qabiil qaban karin yay noo suurta gali karoon qaban karnaa laakiin markaan iraado aniga siyaasadda ana waxa aan rabaa sida aan u rabay tahay aniga aan iraado meel ma tegi karo anigu meel ma tegi karo siyaasadayna waa qofaysan tahay waxaan rabnaa qofka inaan ka saarnaan rabnaa siyaasadda dawladnimo xoogan oo hana qaado oo shaqaysa intaas naga xigto nidaam habaysan shuruuc iyo maxaan ku iraahdaa qawaaniin iyo siyaasad la garanaya leh nidaamka federaalka macnihiisu ma aha dalka in la kala qoqobo oo la kala qaybiyo ma aha nidaam federaal ma aha nidaamka dawladda qaranka ee dadka Soomaaliyeed isu keensadeen ee qayb kasta oo Soomaaliya dad matala ay joogaan oo dadka qaybtaas iyo deegaankaas degan ay soo wakiisheen soo dirsadeen oo ay u dirsadeen arrimaha qaranka inay wakiil uga noqdaan waxba kama jiraan warxooda ma aqoonsanin ma yeelayno in la yiraahdo oo nin tuula halkaas oo meel luuq ku taalahay uu yiraahdo ma anu ma yeelayno nimanka waxay rabaan ama anaaba dawlad oo aniga dawladii aan ahay waa ikana mid kale xaq uu ka yiraa asagana dalkan waxaa la federaaleeyay maamulka iyo adeega dadka si loogu dhaweeyo ayaa la federaaleeyay dadka lama federaaleyn dadka Soomaalidu waa mid dawladda Soomaaliduna waa mid
adeega tacliin soo u helaa qofka degan qurac dheere iyo burdheere iyo caafimaad soo u helaa iyo adeeg soo u helaa nidaamka federaalka loo sameeyay nidaamka federaalka looma sameynin qolooyin iswada haysto iska soo horjeedo oo maanta iska daba qaylinayo inuu ahaado arrimaha qaranka iyo dowladda dhexe dadka Soomaaliyeed soo wakiishay agaasimayaal la magacaabayo madaxweyne ama ra'iisul wasaare uma magacaabay ma ahan 330 xildhibaan oo baarlamaanka federaalka ka koobo dadka soo wakiishay waana kuwaas kuwa dadka wakiilka ka ah go'aanada masiiriga kuwaas u gaara maamulka dhexe ee dalkana waxa uu hayo xukuumadda u hayso oo ayadana ka kooban mujtamaca Soomaaliga oo dhan intii ay maxamar walba kan maanta ku jirin biriyo noqonaya kan maanta wasiir ciidan maanta wasiir aysan biriyo helay kuwii maanta agaasimo guud ama magaciisa aan lahayn barre yeelanayaan dhaxaltooye ma aha sawirada meeshaas aan ku soo aragnaana daliil u ah dhaxaltooye inaanay ahayn waxaan rabnaa laakiin dulqaadkii aawe maanta ama waxba qof aan berri lahayn oon sanadka dambe lahayn oon 10 sano kadib lahayn oon 100 sano kadib aan lahayn haddii qof jira ma aha neefka xoolaha meesha daaqaya waxaad ka duwanaanaysa ma jirto haddaadan lahayn berri oo aadan ka shaqayn berridu inay qurxoonaato weliba maanta la isyaani waxiga maanta ku aka war berriya maanta ka fiican dul qaado berri fiicanad gaaraysaa maya maanta ima dhaafto 36 sano ayna marsiinay dareenka iyo fikirka iyo waxa noocaas fogaan aragaan leenahay riyaan leenahay waana bilownay waana aragnaa inay riyooyinkeena rumoobayaan walaalayaal muddada ee duruufaha adag dowladnimadeenu ay ku soo jirtay iyo muddo kooban sidaan ugu soo kaba karno waaye waxa wasiirka Ali Xoosh uu ka hadlayay ee maanta ka muuqda magaalada Muqdisho muddo kooban dalku inuu soo noqon karo wax ma noo dhiman yihiin wax badan noo dhiman caqabada ma jiraan caqabada waaweyn oo gudaha iyo dibaddaba ah wayna hortaagan yihiin wayna jiraan wax ma qaldayna markaan wax qabanayna wax badan aan qaldayna nidaamkeena maamulka wax ka qaldan yihiin keena maaliyadda wax ka dhiman yihiin keena garsoorka wax ka dhiman yihiin keena wax soo saarka iyo maxaan ku raadaay yaa wax ka dhiman yihiin oo maanta waxaan joognaa annaga oo 9 milyan oo hektar oo dhul ah oo tacbama oo laba webi leh oo sanadkii 2 jeer xilli roobaad leh oo biyaha dhulka ka hooseeyahay ay maskaxdaada diidaysa sida khubaradu ay noo sheegeen haddana maanta inaan baahannahay kaalmo caalami ah in badan oo dadkeena kamid ay ku nool yihiin inta soo hartay waxa ay sitaan raashin dibadda laga soo dhoofiyay ayay inta badan ku nool yihiin waxaas marka ilaahay nama badin ilaahay wuu noo nimceeyay wuxuuna siiyay wixii wax ugu fiicnaa annaga isbadna annaga u sabab ah annaga ka gaabinay annaga diidnay inaan maxaan ku raadaay waxaan cunayno aan soo saarno Soomaaliya qaybo badan oo adduunka kamid ah qoodin kartaa marka badeeda iyo barigeeda iyo xoolaheeda saddexda badda iyo bariga badda iyo beerta iyo barta marka la isku daro qaybo aad u fara badan oo maxaan ku raadaay adduunka kamid ah ayay qoodin kartaa saas inaan gaaran laakiin hal shardi ay leedahay hal shardi oo inta aadan uga gudbi karin inta aadan uga leexan karin oo inaad la timaado shardigaasi ay tahay waa maxay waa dowladnimo dowlad shaqaynaysa oo xoogan inaan helno waay xoogan mugaan leeyahay qoryo waaweyn ee madaafiic sida tabas ma aha qoryaha waaweyn ee madaafiicda waa qayb kamid oo loo baahan yahay laakiin dowlad leh institutions hay'ado dowladeed oo xoogan oo shaqaynayo oo sharciga uu maxaan ku raay ku xoogan sharciga ku xoogan inaan yeelano waaye waxa aan u baahannahay maanta kuma noolaa karno si cashwaai ah reer hebel la tartamaya iyo
reer hebel la dagaalaya iyo reer hebel oo maxaan ku irahdaye dhulka durugsanayo oo meel hebel ceel ka qodanayo meel hebelna war ka qodanayo kuwa kalena ay leeyihiin dhulkaan dhulkiina maa ka guura qararac 10 wiilaa dhimad saakin la leeyahay taas ma aha waa dowlad xoogan oo ku xoogan ilaalinta sharciga